My name is Ibada Adan. Sangalore waxaan deganahay 16 sano. I've been living in Singalore 16 years. Waxaan la soo degay ciyaal 7 ah. I came here with my 7 kids. Waxaana iigu dhalatay 9 ciyaal. I have another 9 kids in Singalore. Hold on. Okay. I have 9 kids for grandchildren. Sorry, grandchildren. Wadankan aad baanu ugu badannahay. We are most of the population in Singalore. Schoolka ilmaha ay noo dhigtaan boqolkiiba waxaanu ka nahay malayn Singalore 40. Okay, in Singalore school, the population of the school, it's most of it, 40% it's Somali students. Waxaanu dhibaato badan baanu sheeganaynaa. We have a lot of concern tan waalidkiin nahay as a parent. Annaga hanti ma haysano ilmaan ma haysanaa. Okay, we don't invest our wealth, it's our kids. Marka dad lacag laho hanti laho guriyada manihin laakiin waxaan dareemaynaa ilmaan haysana ilmaha yagaas inay wax noo qabtaan. So we are rich and our regions it's our kids. So we are just investing our kids to be a next level or next generation to take over when we are. Ilmihii wax barashaan u soo dirsanay. We sent our kids to learn. Wax barashadii wixii ka koreeya ma rabno. We don't accept anything that above the educational. Idin waxaana lagu dhigayaa iskuuladii wax ilmihii noloshoodii baabi'inaya. And what they are teaching our kids is something that will totally destroy our kids' real future. Annaga diintayadana maaha dhaqankayagana maaha akhlaaqdayadana maaha. Okay, our culture, our religion, and our principle is not something that or our logic mind will accept the program. Aniga oo bulshada dareenkeeda wada. As I speak in most of the population of the Somali community, waxaan idin sheegayaa I am saying to you, inaanan anagu arrinta ayada raalli ka ahayn. I am saying that as a most of the community Somali, wax kastoo idinku qaadatan aanan ka hadhayn. As I speak on behalf of the most of the Somali community, it's we don't accept that program and we will do everything that we can to just abandon that program. Annaga codkayagaad ku joogtaan. You are as a board meeting, you are working or you have this opportunity because of us. Marka waxaan rabnaa inaad waxaanu idin soo gudbino aad wax ka qabataan. So what we want is we need you guys to do our concern, to do anything that you are capable that to find solution for our concern. Wadanka kama guuri karo. We can just decide and move and pack our bag. Ilaa heerstar ilaa high school waxaad nagu kalifaysaan anagu inaan iskuul la samaysano. So it's you are guys forcing to us to have our own school from head start to high school. Marka dhibaato nooga imanaysa. And there will be a lot of devastation. Marka anagoo idin tixgelinayna anagana waxaan rabnaa inaad idin tixgelisaan. We are respecting you, so we need you guys to do something. Maadaama ood boardkii tihiin. Since you are board meeting. Qoladii waxaan sixinaysa aad tihiin. Since you are the community or the group that will take the next level to find a solution. Qoladii ama wax diidaysa ama wax ansixinaysa. Since you are the guys, a group or the people that will do yes, we can stop or no, we cannot, we can continue. Marka waxaan rabnaa annaga ilmahayaga inay badbaadaan. So what we need is to save our kids. Inaad nagu garab qabataan baan rabnaa. And we need you guys to help us. Aad baan idin salaamaya. Thank you so much. I appreciate it for the listen.